بسم الله الرحمن الرحيم خيارتك وحنا كنال كينن بداية تيج كانال وأنا كوسو قدبنو أنت بدن عرون علمية الله حريرة تكنولوجيا دا كمبيوترka kusoo dhawaada cashar kale cusub ee maanta kaga hadlayno sida aad kaga diiwaangelin karto website kan la yiraahdo Coursera ee aad uga dalban karto casharo free ah ama koorsooyin free ah oo nooc kasta aad doonayso haday yihiin science haday yihiin social haday yihiin ICT haday yihiin economic iyo dhaqaale haday yihiin environment nooc kasta oo aqoon aad doonayso oo maanta dunida ka jirta halkaad ka dalbanayso waa Coursera oo ah website-yada inta badan ugu caalamisan dhinaca markay noqoto cilmiyada iyo aqoonta iyo wax ku saabsan waxbarashada sidaa darteed Coursera iska duwan adaba marka cashar noocaas aan dhiganaa maanta ugu horeyn si aad iskaga diiwaan geliso marka ugu horeysa waxaad soo kicinaysaa browserkaaga computerkaaga browserkaaga markaad soo kiciso google-kaad gelaysaa intaasaad search garaynaysaa intaasaad qori Coursera dabeetana intaa markaad ku qorto linkigan ugu horeeya kuu soo baxaya kanaad ku dhufanaysaa oo ah website-kan Coursera oo ah kii officialka ahaa isagaad ku dhufanaysaa waa official website-ka Coursera ay leedahay gudihiisaad gelaynaa waa sugaynaa wuu inoo soo kacayaa intaa markuu inoo soo kaco saan galno waxaan doonanaynaa halkaa waxaan ku qoraynaa nooca course aynu doonayno marka ugu horeysa intaynan hota course-ka qorin waxaynu bilaabaynaa oo aan sameynaynaa inaan isdiiwaan gelino waa iska diiwaan gelinaysaa website-kan waa iska diiwaan gelinaysaa haddii aad hore u isticmaalaysay waxaad leedahay login in haddii aad iminkaad ku cusub tahayna join for free baad leedahay waa sign up-ki halkaasaad ku dhufanaysaa marka ugu horreyn waan isdiiwaan gelinaynaa waan iska diiwaan gelinaynaa waxaan leenahay join for free markaan ku dhufanno daaqadan baa inoo soo boodaysaa daaqadani markay inoo soo boodto halkaasaad arkaysaanba waxaa ku qoran sign up waa maxay waa isdiiwaan geli haddaad iminka ku cusub tahay sidaa darteed halkaa waxaad ku qoraysaa magacaaga emailkaaga iyo passwordkaaga ayaad ku qoraysaa haddii aad intaas ka dhaaftana kuwana waad ku search garayn kartaa oo continue with google akoonkaaga google-kaad ku xiriirin kartaa kaaga facebooka kaaga abalka intaba waad ku apply garayn kartaa so ugu horreyn intaa waan buuxbuuxin doonaa dabadeetana waan isku soo noqon doonaa insha allahu adiguna hadhow saasaad u buuxbuuxin doontaa oo emailkaaga waxyaabahaasad gelini way intaa markaan sameeyo tusaale ahaan oo kale halkaa waxaan gelinayaa magacayga oo saddexan tusaale ahaan oo kale magacayga aniga oo ah intaa markaan geliyo halkaana gmail-kaygaan gelinaya gmail-kaaga gashanaysaa gmail-kaaga ayaad halkaa gashanaysaa aniga gmail-kayga waa kaasaan geliyey kaasaan gashanayaa waad fahantay mar maraynayaa kaa marka aan geliyo halkaana waxaan ku qori doonaa passwordkaaga maxaa lagu yidhi markaa between 8 and 72 characters waa inaanu ka badanin sidaa darteed passwordkaygana halkaasaan gelinayaa passwordkaygana waan gashaday intaa kadib horaan uga soconayaa sidaad arkaysaan baa khiyaaray markaan geliyo passwordkaygii gudihii baa lay gudbiyey oo waan isdiiwaan geliyey oo shirkadii Coursera website-keedii waan iska diiwaan geliyey halkaas sare waxaad ku arkaysaan akoonkaygii aan ka samaystay iminka akoonkii aan ka samaystay iyo gmail-kayga aan ku xiriirsaday ayaa halkaa ka arkataa intaa markaad samayso stepka koowaad stepka labaad halkaa waxaan ku qoranaa nooca haddaba course-ka aynu doonayno course-ka aynu rabno aynu halkaa ku qoranaa tusaalahaan oo kale course-kaan doonayaaba tusqaada inuu yahay graphic design ayaan doonayna ku qoro graphic design free course inter baad leedahay oo research garaynana dabeetana wuu inoo soo baxayaa noocyo badan oo inta badan graphic design ayaa inoo soo bixi doona dabadeetana tusaale ahaan oo kale waxaan ku dhufanaynaa kan baynu ku dhufanaynaa kaa ugu horeeyana linkiga ugu horeeya ku dhufanaynaa inter baad click baad haysaa daaqadan markaa kuu soo saaraya halkan haddaba halka muhiimka waa halkan haddaba daaqadan markuu kuu soo saaro ee aad dalbato course-kii aad doonaysay course-kii aad rabtay marka aad dalbato ee aad Coursera ka dalbato laba option buu ku kala siinayaa saad arkaysaanba option waxaa la yidhahdaa enroll for free
option waxa la yiraahdaa financial aid available labada option baa lagu kala siinayaa in role waxa weeye waa inaad wixii limit waqti limit duration waqti limit lagu siinayaa lagu leeyahay waxa hayso marka qaybtaas iyadu inta badan waa lacag sidaa darteed si course-kii free si course-kii aan si free uga helo waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay financial aid available ayaad ku qoraysaa halkaas click dhahaysaa click baynu niri click marka aynu nidhaahno wuxuuna siin doonaa optionskan bayna siin doonaa uu leeyahay course-kan maxaad doonaysaa inaad barato course-kan maxaad u rabtaa maxaad course-kan u xiisaynaysaa ma waxaad course-kan sidee doonaysaa inaad u barato ma qaybta horaad ka baranaysaa fundamental of graphic design ma introduction to photography ma introduction image making intaas qaybood baad barana waxaan doonayaa inaan barto anigu course number 1 fundamental of graphic design qaybta koobaad baan doonayaa inaan dhigto dabeetana waxaad leedahay next marka aan dhahno intaa markuu inoo soo saaro aanu intaa ka doorano waxaad leedahay haddana continue to the application baan leenahay continue to the application ayaa aynu leenahay continue to the application markaynu idhaahno formkan buu inoo soo saari doonaa formkan ayaaynu buuxbuuxin doonaa oo muhiima formkan baad buuxbuuxin doontaa formkan ugu horreyn waxaa ku qoran tell us about yourself ka hadal wax adiga kugu saabsan waa detail your informationkaagii ugu horreyn waxaad halkaa ku qoraysaa what's your highest level of education baad sheegaysa waa options lagu kala siiyey levelkaaga educationka heerkaaga waxbarashada halkuu marayo halkaad ka gaadhay heerkaad ka gaadhay ayaad sheegi ma dugsi sare ma dugsi dhexe ma heer jaamacadeed waad xusaysaa tusaale kale anigu imika kale waxaan ka gaadhay heer jaamacadeed baan ka gaadhay soma heer jaamacadeed baan ka gaadhay oo university level high school college degree masters and advanced degree waxaa leeyahay others baan anigu inta midnaba ma yihi aniga high level of education kaygu waa university marka optionska sibaad ka dooranaysaa dhow way sidoo kale waxaa lagu weydiinaya what's your annual income celceliska dakhliga kusoo gala noo sheeg baa lagu yidhi per month or per day way sanaan kale waxaan ka dhigaynaa waan yaraynaynaa waxay soo gala baan leeyahay like for example 60 baa soo gala select currency halkaan waxaad ka dooranaysaa select currency-gaagii nooca lacagta tusaalahaan kale waa maraykan baan halkaa ka doorananaa oo taa USD du waa maxay waa United States United Kingdoms waa United States weeye United States baad dooranaysaa marba waxay ku xiran tahay aduu nooca filka doonayso currency-ga laakiin anigu imika waxaan doortay maraykanka intaa markaad samayso haddana waxaad halkan ku dooranaysaa oo su-aasha kale in la weydiiyey ay tahay maxay employment statuskaaga oo ah heerkaaga shaqo miyaad shaqaysaa ma shaqaysid ma waqti ka mid aad shaqaysaa ma freelancer baad tahay marka halkana waad xusaysaa iyadana optionkaasaa soo dooranaysaa mid ka mid ah intaa ma full time baad shaqaysaa ma waqti ka mid aad shaqaysaa ma unemployed baad tahay ma employed baad tahay ma student baad tahay haddaad student tahay dee halkaasaad ku qoray midna waan idiin sheegayaa akhyaarta ku xidhanay videoga daawanaysaa course-kan aynu maxay dalbanayno aynu doonayno si scholarship ama free inaan ku helno qiimihiisu markii hore maxay intaasuu ahaa 79 USD oo ah dollarka maraykanka sidaa darteed dee halkaa waxaad ka garan kartaan maba badna dhaqaalihiisu laakiin haddana dee course-kii inta badan si free ayaa aynu imika ku helaynaa walow aanay inta badan isku mid ahayn wax aad free ku dalbatay course aad free ku qaadatay iyo course aad inta badan lacag lagaa qaaday dee isku level hata noqon maayaan ma garanaysaa mar walba waxaa qiimo badan ka lacagtaas ku bixisay laakiin haddana ka freega laftiisu ma xuma oo haddaad course-kii free ku qaadato isaga laftiisu wuu wanaagsan yahay okay haddaynu kusii soconno casharkeena heerkaaga shaqo ayaad halkaa ka dalbanaysaa tusaalayaal kale waxaan dhahayaa unemployed baan dhahayaa heerkaaga shaqo ma shaqeeyaan dhahayaa laakiin adigu optionkaad ka dooranaysaa hadhowto kii ku khuseeya halkana haddaba description baynu qori doonaa halkan haddaba su-aal kale ina weydiiyo oo ah why you are applying for financial aid buu ku leeyahay su-aashan buu ina weydiiyey magarana oo ah maxaad u apply garaynaysaa financial aidkan maxaad u dalbanaysaa course-kan si free maxaad ugu dalbanaysaa halkaasaad marka reasonskii baad halkaa ku qoraysaa description kooban oo 150 words baa halkan lagu qoraya 150 words wax ka badan kuma qori kartid halkaa wax ka yarna kuma qori kartid
sidaa darteed waxaa wanaagsan 150 eray inaad halkaa ku qorto oo laakiin 150 eray ay yihiin de 150 eray oo micno samaynaya ay noqdaan oo su-aashii lagu weydiiyey ka jawaabi kara. Okay, saynu haddaba 150 ka eray uga jawaabno waynu qori doonaa oo waynu soo diyaarsanaynaa then waan isku soo noqon doonaa. sidaa darteed habka aad markaa halkaas ku qoraysaa dabeetana waan isku soo noqon doonaa insha allahu. Okay, akhyaarta ku xidhan kanaalkeena casharkeena baan gudaha dhexda kaga jirnaa. dabeetana halkaasaad su-aashiina la weydiiyay where you apply for financial aid wuxuu yidhi waxaad qortaa 150 eray ayaana laga doonayaa. sidaa darteed 150 eray maadaama laga doonayo halkaasaan 150 eray ku qorayaa. anigu markaa waan soo diyaarsaday adiguna hadhow halkaasaad ku qoraysaa. dabeetana halkaa markaan ku qoro okay akhyaarta ku xidhan kanaalkeena intaa kadib halkaasaan ku baast garanaynaa oo anigu meel baan ku diyaarsaday adiguna hadhow baad halkaa ku qoray. waxaan leeyahay control iyo v dabadeetana halkaa waxaa ku arkaysaan su-aashiina la weydiiyey ahayd way maxaad sababta loo apply garanaysaa waa maxay waynagaa jawaabtii ka jawaabnay ee nili I am applying to financial because of guarantee. wanka halkaa paragraph ee ka kooban 150 words baynu ku apply garanay. halkaa waxaa ku arkaysaan inaynu 150 words ayna laga doonayba ku apply garaynay. haddaba leeg sidaa darteed adiguna hadhowto markaad halkan buuxbuuxinayso waxaa lagaa doonayaa 150 eray inaad halkaa ku qorto. 150 eray baa lagaa doonayaa inaad halkaa ku buuxiso. 150 eray waad ka yarayn kartaa laakiin waxa wanaagsan inaad 150 eray halkaa ku qorto. intaa kadib markaan intaas samayno aynu xogaha soo dhan buuxino next baan leenahay next baad leedahay. dabeetana halkan wuxuu ina siinayaa haddana su-aal kale ina weydiinayaa oo iyaduna la xidhiidha maxay and how much can you pay for selected course already anigu 40 baan ka dhiganayaa. su-aasha kale ina weydiinaya waa maxay iyaduna su-aasha kale ina weydiiyay iyaduna waa tan oo ah how will you select course help you with your goals. sideebaa uu kaaga caawin doonaa sideebaad ku xulan doontaa course-kan mustaqbalka uu kaa caawin doonaa marka goalskii hadafyadii aad doonaysa inaad hadhowto fushato ayaa halkaa iyadana gelinaysaa. marka iyadana halkaasaan ku diyaarsaday waan soo diyaarsaday halkaasaan keenayaa qura adiguna hadhow iyadana 150 eray oo kale ayayna laga doonayaa. sidaa darteed halkaasaynu iyadana dhammaystiri doonaa. okay khiyaaray iyadana halkaasaynu jawaabtii ku qoraynaa su-aashayna la weydiiyey halkaasaan jawaabtii ku qorayaa. control v baan leeyahay meel baan ku diyaarsaday anigu waan soo dhammaystirtay. dabeetana iyadana maxaan samaynay 150 eray bayna laga doonayay 150kii eray ayaan halkaa ku qornay. iyadana saasaad hadhowto u buuxinaysaa. intaa marka aan sameeyo su-aasha kale ku xigta waxa weeye terms of condition-kan iyadana tig baad saaraysaa halkan waa xeerarkii iyo qawaaniintii ay ku shaqaynaysay weeye. sidaa darteed waxyaabihii lagaaga baahnaa weeye. sidaa darteed tigtaad saaraysaa. tigta markaad saa u saarto intana dib baad u qoraysaa. su-aashan waxaa la weydiiyey please type the following sentence. dabeetana intan baad qaadanaysaa. intaad qaadato intan copy dhahno baynu halkan ku baasti garaynaynaa dib baynu u qoraynaa qura. halkaana tigtan saaraynaa waxaanu iska check garaynaynaa inaynu robot nahay si in loo xaqiijiyo inaynu robot nahay inaynu computer nahay qof inaynu bini aadan nahay si loo kala ogaado. halkaasa tigta saaraysaa. halkaa markaa tigta aad saarto hoos baan u degaynaa. halkaa waxaa ku qoran review wixii aynu shaqooyinkeenu soo wada qabanay oo dhan baa dib ina loo tusayaa. intaa kadibna waynu codsanaynaa oo submitting ayaynu dhahaynaa. submit application ayaana loo soo qori doonaa. submit application bayna loo soo qori doonaa. dabeetana intaa marka aan samayno dhammaan waxaana la tusay review shaqooyinkeenu soo qabanay oo dhan iyo waxaanu soo qabanay oo dhan bayna la tusay. dabeetana ugu dambayn waxaa halkan ku qoran submit application oo ah application-ka codso. dabeetana waxaan leenahay submit baynu leenahay. submit marka aynu dhahno akhyaaray waan yara sugi doonaa. submit markaan saa u dhahno okay akhyaaray intaa kadib daaqadan baynu la soo saari doonaa oo ah kadib markaynu codsanno application-kii wuxuu noo soo halkaas arkaysaan waxaa ku qoran successed we have received your application. success we have received your application. congratulation waad ku guulaysatay maxay waynu ku guulaysanay inaynu
codsano kooraskii si free aynu ku helno iyaguna waxay noo soo qoreen oo ayna dhaheen we have received your application waanu helay bay dhaheen applicationkaad noo soo dirtay waanu helay sidaa darteed hadhowto way heleen iyaguna codsigii intaa kadib hadhowto codsigaasi waxayna dib inoogu soo jawaabi doonaan waqtigu markuu gaadho 17 bisha December 17 bisha December ayay akhyaaray inoo soo jawaabi doonaan oo aynu course-ka si free ku heli doonaa inta ka horeyso oo dhan wayna sugi doonaa marka waqti buu qaadanayaa kolley oo lagu soo jawaaba bil iyo waxbay qaadataa mararka qaarkood laakiin iminka inaga 17 bisha maanta baynu ka weeyay ilaa 17 bisha ayaynu sugi doonaa oo emailkeena gmailka ayaynu lagu soo diri doonaa in la aqbalay iyo in kale haddayna aqbaleenna way noo soo diri doonaan haddayna diideenna wayna arki hadday rejected noqotona wayna arki hadday approved hadday noqotona wayna arki doonaa sidaa darteed inahaas ayaynu maanta aan doonaya inaan idinla wadaago runtii qaybtani waa muhiim Coursera waa meel muhiim ah platform ballaaran weeye oo inta badan aad ka helayso dhammaan koorsooyinka noocaad u baahan tahay ee dhinaca waxbarashada sidaa darteed halkaas falowgeed gala ku xidhnaada website-ka iska diiwaan geliya waqti badan ku lumiya halkii aad waqti badan waxyaabo kale oo maalaayacnaya waqti badan iskaga lumin lahaydeen halkaas waa meel muhiim ah runtii koorsooyinka dalbada ku xidhnaada inahaas ayaynu maanta kusoo gabagabayn doonaa casharkeena inoo iyo kulan dambe oo xiiso leh waad mahadsantihiin